bismillaahi raxmaani raxiim wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Soomaali News ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn waxa qaybka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo siyaabo kala duwan uga hadlay dagaaladii ka dhacay degmada Balcad kadib Al-Shabaab oo la wareegay magaaladaasi saacada kooban maantay booliska Kenya oo baadi goobaya ganacsato Soomaaliyeed ee lagu leeyahay dalka gudihiisa madaxweynaha galmudug qoorqoor oo cadeeyay mowqifkiisa siyaasadda ee haatan dalka wuxuu yahay halkan ayaa idin kula wadaagi doona saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya oo looga digay in ay ku milmaan arrimaha siyaasadda dalka ee xilligan kacsan dowladda Mareykanka waxay cadaadis saaraysaa Rooble iyo sidoo kale farmaajo ugu baaqaysa inay joojiyaan falalka hubinti la'aanta ee xiisadaha sii kicinayo iyo midowga musharaxiinta iyo sidoo kale Rooble oo kulan yeeshay waxyaabihii looga wada hadlay ayaan halkan idinkugu soo gudbi doonaa u diyaar garooba qodobada iyo kuwa kale mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa maalinimo Khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay bisha 12 soddonkeeda December 2021 ku soo dhawaada qodobadeed maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahino haddii ayna ku hormarna magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa saakay aroortii hore la wareegay ururka Al-Shabaab kadib dagaal ay ku soo qaadeen dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo leh dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyadii dagaalamo iyo dadka shacabka ay ku sugnaa magaaladaasi soo kala gaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dileen ugu yaraan 9 sargaal oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday gaadmo ah magaalada Balcad qaybo kamid ah ee gobolka Shabeellada Dhexe taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la xiriira wakaalada wararka ee Soona ayaa xaqiijiyay in madaafiic iyo rasaas ay adeegsadeen Al-Shabaab ay ku dhinteen 5 qof oo rayid ah oo kuwa kalena dhaawacyo culus ay ka soo gaareen taliska ayaa ku daray in cashar lama iloowaan ay u dhigeen xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee ku soo qaaday dagaalka magaalada Balcad waa siday hadalka u dhigeen dhinaca kale Al-Shabaab ayaa dhankooda waxay sheegteen in weerarka degmada Balcad ay ku dileen hal askari iyo 3 kalena ay ku dhaawaceen sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen gawaari ay lahaayeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle kaas oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Xaaji marka laga tago sheegashada labada dhinac si dhab ah looma cadeyn karo khasaaraha rasmiga ah oo dhinacyada ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ku dagaalamay magaaladaasi soo kala gaaray balse waxaa jira khasaare xoogan oo dadka shacabka ay ku dhaqnaa magaaladaasi soo gaaray muddo ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana intaa xirnaa ganacsiga iyo isku socodka kale ee bulshada inkastoo markii dambe ay dib uga noqdeen waxayna la wareegeen xarunta ee saldhigga u ahayd ciidamada dowladda ee buudada magaalada iyo sidoo kale degmada looga aramiyo degmada Balcad xaaladda magaalada Balcad ayaa muddo kadib dib u soo noqotay waxaana ka socda halkaasi howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku baadigoobayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab in ka yar 15 kiiloomitir ayay u jiraan magaalada Balcad oo geesaha ay ka xigaan taas ayaana marar badan suurtagelisay in weerar gaadmo ah ay ku soo qaadaan iyo kuwa toos intaba shacabka ku dhaqan magaaladaasi waxay wajahayaan cabsi xoogan oo dhanka noloshooda ah maadaama ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan iyo Al-Shabaab tiro dhowr jeer ku dagaalameen xaaladda guud ee amniga magaalada Balcad ayaana haatan ah mid iska degan markii loo fiiriyo dagaalkii saaka halka ka dhacay oo haatan xaaladda mid caadi ah ku soo noqotay markaana magaalada Muqdisho waxaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho shir aan la shaacin natiijada ka soo baxday midowga musharaxiinta iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble sida aynu xogta ku helna kulankaas waxaa diiradda lagu saaray arrimihii ugu dambeeyay ee doorashooyinka qodobada ugu badan ee laga wada hadlana waa khilaafka doorashada ay haatan hareeyay iyo sidoo kale muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble dhinacyada shirkaasi ka qayb galay waxaa laga xusay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka iyo gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah shirku oo albaabada u xirnaayeen waxay diiradda ku saareen qodobada ugu waaweyn yihiin arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale sida ay midowga musharaxiinta qayb uga noqon lahaayeen shirka golaha wadatashiga qaranka oo dhawaan ka furmi doona magaalada Muqdisho oo inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku sugan yihiin caasimadda madaxda maamul goboleedyada ee dhankooda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo ka wada caasimadda dalka taas oo wax looga qabanayo arrimaha jahwareerka siyaasadeed ee xilligan dalka hareeyay
dhinaciisa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo haatan ku sugan gudaha magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa kulan gaar ah la qaatay danjiraha dalka UK u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya. Qoorqoor iyo haweeneydan ayaa waxay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay arrimaha doorashooyinka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska Galmudug. Sidoo kale waxaa qoraalkan lagu sheegay in labada dhinac ay isla garteen inay tahay in la soo gabagabeeyo doorashada una arkaan xalka kaliya ee looga gudbi karo xiisadaha taagan ee xilligan muddada dalka ee hareeyay iyo doorashada raagtay ay sababtu tahay. Waxay hoosta ka wada xariiqeen baahida degdega ah ee loo qabo xilligan inay tahay doorashada mid la soo gabagabeeyo ayna tahay xalka kaliya ee Soomaaliya xilligan lagu badbaadin karo ayaa lagu yiri xafiiska Qoorqoor war ka soo baxay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa toddobaadkan soo gaaray caasimadda dalka oo ina ka qayb galaya dadaalo socdo ee lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisada fila Soomaaliya. sidoo kale waxa uu ka qayb gali doonaa shirka golaha wada tashiga qaranka ee u dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka. Beesha caalamka ayaa cadaadis ku saaraysa madaxweyne Farmaajo oo madaxweynaadkiisa dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta tan iyo khilaafkii ka dhex qarxay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo xalliyo doorashadana la dedejiyo. xaaladda Soomaaliya ayaa haatan cakiran waxayna ka sii daraysaa marka ka dambayso khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Roble ayaana sii xoogaysanayo. Si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaase beesha caalamka cadaadis ku saaraysa madaxweynihii hore iyo sidoo kale ra'iisul wasaarahaba in ay xal ku dhameeyaan khilaafka labadooda ka dhex taagan. saraakiisha booliska Soomaaliya ayaa looga digay inay ku milmaan xilligan siyaasadaha dalka ee cakiran isla markaana mowqif ay ka wada qaataan. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaanle sare Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ciidanka booliska kaga digay inay ku milmaan arrimaha siyaasadda xilli uu jiro khilaaf xoogan oo haatan ka dhex taagan Roble iyo Farmaajo. taliyaha ayaa kulan ay isugu yeeray dhammaan saraakiisha ciidanka booliska ayaa sheegay marxaladda dalka uu ku jira awgeed ay muhiim tahay inay dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ay noqdaan kuwo nadiif ah oo siyaasadda aysan waxyeeleyn shaqadooda. mas'uuliyadda koobaad waxay tahay in aan ilaalino amniga nafta maalka shacabka Soomaaliyeed inaan fulino rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin iyo sidoo kale inaan dhowrno iyo sidoo kale inaan isku sii u dhowrno odayaasha waayeelka wiilasha yaryar iyo kuwa bajaajlayaasha oo inta badanba dhibaato la kulma ayuu yiri taliyaha Xijaar. sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Xijaar ayaa ku amray saraakiisha ciidamada booliska in markuu dalka xilligan oo kala maraya ay ku ekaadaan amniga guud ee dalka isagoo si cad ugu sheegay in ciidanka booliska ay mas'uul ka yihiin amniga doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. shalay hay'ad ahayd sidaan oo kale markii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage kulan uu la qaatay saraakiisha ciidamada militariga uu ku amray inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda ee xilligan cakiran. taliyaasha ciidamada ugu sarreeya dalka ayaa amray saraakiisha kale inaysan la safan cid gooniya arrimaha siyaasadda taas oo ka dhalan karta waaqib xumo dalka soo wajahdo qofkii ku kacana tilaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan. xaaladda guud ee arrimaha siyaasadda waxa haatan tahay mid kacsan balse amniga guud ee magaalada Muqdisho waa wanaagsan yahay inkastoo ciidamada iska soo horjeeda oo dhinacyada siyaasadda kala taabacsan ay ka jiraan gudaha magaalada Muqdisho ay ku wada sugan yihiin. booliska Kenya ayaa baadigoobaya ganacsato Soomaaliyeed ee lagu leeyahay dalka Kenya si gaar ah magaalada Nairobi. waxaa socda dadaalo lagu baadigoobaya ganacsato Soomaaliyeed oo muddo toddobaad lagu leeyahay gudaha dalka Kenya kadib markii goobtooda ganacsi ay ka afduubteen dad aan haybtooda la aqoon. warbaahinta waaweyn ee dalka Kenya ayaana si weyn u hadal haysta qaabkii loo afduubtay ee loo qafaashay ganacsatada Soomaaliyeed. 23 bisha December ayaa Maxamed Xasan lagala baxay meherad ganacsi oo ku lahaa xaafad ku taal magaalada Nairobi ilaa haddana lama oga halka uu ku maqan yahay. su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa cidda afduubatay ninkan qoyskiisa ayaana ka walaacsan iyaga oo dowladda ka dalbaday in ay arrintaani meel ku cadeyso isla markaana arrimaha noocan oo kala waayihii dambe Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya ay la kulmayeen. si rasmi ah looma shaacin cidda ay yihiin qolyaha ka dambaysa falkan lagu afduubtay muwaadinka Soomaaliyeed. hase yeeshee waxaa jira tuhun weyn oo laga qabo inay ka mid yihiin oo qayb ay ka yihiin dad xiriir la leh dowladda sida ay baahisay warbaahinta dalka Kenya. shakhsiyaadka ka haysta ninkan ayaa la sheegay inay isku tilmaameen askarta dowladda u qaabilsan hirgelinta canshuuraha iyo xakamaynta cudurrada safarka ee COVID-19 waa markii koobaad ee la wadanayay. Cumar Xasan Maxamed oo la dhashay ganacsadaha la leeyahay muddada toddobaadka ayaa sheegay in dadkii meherada ganacsiga ugu tagay Maxamed ay wateen gaari nooca loo yaqaano oo qanta ayna ka kaxaysteen halka iyaga oo sharaxaad aan bixin. Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya inkastoo ganacsatadu u badan yihiin waxaa jira afduubyo xoogan oo waayihii dambe ay la kulmayeen kuwaas oo qaarna lagu qaarajiyay halka kuwa kalena laga soo daayay. inta ayaana ku soo gabagabaynaa barnaamij wareedkeena aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News. fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro si share garay saaxiibadaadana la sii wadaag page-keenana ku soo biir oo like iyo follow da saar YouTube-keenana booqo Somali News. mahadsanidin.